assalaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan anigu waxaan ahay maxamed cilmi dhicisow barnaamijkii kan ka horreeyey waxaynu ku soo qaadannay weydiimihii ama su'aalihii ahaa waa maxay af soomaali af soomaaligu muxuu u kala baxaa lahjado ahaan iyo waa maxay tix iyo tiraab haddaba barnaamijkan waxaynu wax kaga oran doonaa haddii eebbe idmo 3 weydiimood oo ah waa kuma abwaan waa maxay gabay iyo gabayga maxaa loogu luuqeeyaa barnaamijku waa mid dhaqan ah oo lagu ilaalinayo af Soomaaliga waxaana rajaynayaa inay wax ka kororsan doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan siiba dhalinyarta qorayaasha ardayda iyo qof kasta oo xiiseynaya ama danaynayo afka hooyo haddaba waa kuma abwaan hagaag waxaynu dhihi karnaa abwaanku waa qaamuus ama waa qaryaan qaamuuska maxaa laga helaa qaamuuska waxaa laga bartaa ereyga afka dhaqanka hiddaha iyo taariikhda abwaanku waa qof ku xeel dheer oo garanayo hiddaha dhaqanka iyo taariikhda bulshadiisa waa abkii waanada waa nin waaye aragah buuni ah afgaaban aan hadal badnayn oo aqoon weyn xambaarsan abwaanku waa nin haya tagtada oo ka taariikhin karo garanaya taaganta oo ka talin karo isla markaana u durusi kara timaatada oo tusaaleyn karo waxaa jiro qeexid kale ama waxaynu dhihi karnaa sidoo kale abwaanku waa qaryaan waa kuma qaryaan waa qof hal abuur leh suugaanyahana garanayo ama ka maansooda qaybaha kala duwan ee maansada Soomaaliyeed Soomaalidu waagii hore hal mufti ayay lahayd wuxuuna ahaa kee muftiga abwaanka nin hadduu abwaan qaali iyo qaadi gabay sheegto qoomkiisa waa inuu baraa qaacidaan harine taariikhdu waa inay qortaa sida qur'aankii qaamuusta iyo lagu dhigaa buug qaraamiyahe haddii kale qof weeyaan lahayn erey la qaatay haddaba waa maxay gabay waxaynu maqalnaa abwaanku wuu maansoodaa ama suugaan ayuu leeyahay ama wuu gabiyaa haddaba waa maxay gabay gabaygu waa boqorka suugaanta waa tiirka curadka iyo aabbaha maansada Soomaaliyeed waagii hore maansada waxa loo aqoon jiray gabay deedna isaga ayay ka farcameen qaybaha kale ee maansadu gabaygu wuxuu leeyahay miisaan xaraf raac qaafiyad iyo luuq mana laha oo uma baahna durbaan iyo music loo tumo oo uu ka deeqtoon yahay waa kii abwaandoodan laha Allah u naxariistee sidii hees la daran dooriyo koox la dananayso durbaan music ima daahiyo dul xafida weyga dumar kaygu uma baahaniyo daasal u tuma haddaba maxaa gabayga loogu luuqeeyaa hagaag wax kasta ee wanaagsan ee cod sare ee wanaagsan lagu qaado waxay noqdaan wax cad oo si waadixa loo maqlo waxayna soo jiitaan dareenka dadka kaliya maaha dareenka dadka ee xitaa dareenka noolaha kale waxaynu ognahay in geela ama xoolaha kolka la shubayo loo heeso oo weliba heestaa lagu luuqeeyo si ay biyaha si wanaagsan ugu cabaan dhanka kale ilmaha yar kolka ay hooyadu cod wanaagsan ugu luuqayso waxa la arkaa inuu farxo gamco aamuso ama uu seexdo waxaynu ognahay in nabi maxamed naxariis nabadgelyo dushiisa haatee uu yiri qur'aanka cod wanaagsan ku akhriya oo ku luuqeeya marka codka wanaagsan ee luuqda ah wax kasta ee wanaagsan waa u wanaajiya luuqda gabayga wuxuu yeeshaa dhadhan macaani iyo xiise gooni ah waxayna xitaa meesha ka saaraysaa durbaan iyo music in loo baahdo oo waa kii doodaan lahaa durbaan music ma daahiyo dul xafida weyga dumar kaygu uma baahaniyo daasal loo tuma haddaba weydiimo martabadee gabaygu ka joogay Soomaalida martabadee ayuu gabaygu ka joogay Soomaalida miyay adag tahay curinta gabaygu waa maxay deelqaaf waxaynu kaga warceli doonaa haddii eebbe idmo barnaamijkan ka xigo se intaa ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeenni maanta oo aan kaga warcelinay su'aalihii ama weydiimihii ahaa waa kuma abwaan waa maxay gabay iyo maxaa gabayga loogu luuqeeyaa inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan ka xigo oo isna xiisihiisa leh waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo